Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow channelkeena Masaw Channel. Maanta halkan waxaan kusoo gudbin doonaa waxyaabo aad ka weyn qosolka ama faa'iido uu inoo leeyahay caafimaad ahaan qosolku. Halkan waxaan kusoo gudbin doonaa 9 qodob oo aynu ka sheegi doono qosolka. Qodobka koowaad, qosolku wuxuu faa'iido inoo leeyahay anti-stresska, inuu ka hortago stresska. Qosolku waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ama kuwa ugu fudud ee lagu daweyn karo stresska. Qosolka wanaagsani wuxuu yareeyaa soo deynta hormoonada walaaca keena ee loo yaqaano epinephrine iyo cortisol. Stressku wuxuu saameyn toos ah ku keenaa inuu hoos u dhigo shaqooyinka ay qabanayso maskaxdu, si toos ah iyo si aan toos ahayn ayuu saameeyaa. Taasna waxaa laga hortagi karaa iyadoo la joogteeyo qosolka iyo farxadda. Qosolku sidoo kale nasasho degdeg ah wuxuu siiyaa maskaxda, iyadoo inta uu qofku guda jiro qosolka aanay maskaxdiisu qabanin wax fikir ah ama wax werwer ah aanay soo food saarayn. Qodobkeena labaad haddii aan u gudubno waa strength immunity system, inuu xoojiyo awoodda difaaca jirka. Nidaamkeena difaaca jirka ayaa door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta caafimaadka iyo ka fogaanshaha caabuqa, xasaasiyadda iyo kansarka. Waxay caddeeyeen dhakhaatiirta cilmi nafsiga neuroimmunologists in dhammaan shucuurta taban sida walaaca, diiqada ama xanaaqa ay daciifiyaan nidaamka difaaca jirka, sidaasna ay ku yaraato awoodda dagaalka ee cudurrada. Sida aan kasoo xignay Dr. Lee Seeberg oo ka tirsan jaamacadda Loma Linda, California, ayaa wuxuu yiri qosolku wuxuu gacan ka geystaa inay bataan waxaa loo yaqaano natural killer cellska, iyo inuu sidoo kale kor u qaado heerka antibody-ga. Baadhayaashan caalamiga ah waxay ogaadeen kadib markii bukaanno badan ay ku daaweeyeen qosolka in ay kordhayaan unugyada difaaca jirka ee la dhaho hemoglobin A ee ku jira sanka iyo marinnada neefsashada, oo la aaminsan yahay inay leeyihiin awood ka hortagta fayraska qaarkood iyo bakteeriyada iyo noolaha kale ee microorganism-ka ahba. Sidoo kale waxay ogaadeen in haddii saacadiiba dhowr jeer aad qososho ay yareyso dhuun xanuunka, hargabka iyo infekshanka ku dhaca feeraha. Qodobkeena saddexaad waa high blood pressure and heart disease, inuu ka hortago dhiig karka iyo wadne xanuunka. Waxaa jira dhowr arrimood oo keenaya dhiig karka iyo wadne xanuunka, sida heredity-ga, buurnaanta xad-dhaafka, obesity-ga, iyo sigaar cabista iyo qaadashada xad-dhaafka ah ee la dhaho saturated fats, iyo kolestaroolka ama dufanka. Laakiin walwalka ama stressku waa waxyaabaha ugu waaweyn ee keena dhiig karka iyo wadne xanuunka. Runtii, qosolka ayaa gacan ka geysta xakameynta dhiig karka iyadoo la yareynayo hormoonada walaaca iyo werwerka ee la dhaho epinephrine. Xaqiiqdii, qosolku wuxuu ka hortag u yahay xanuuno badan. Sidoo kale, haddii aad halis ugu jirto cudurrada wadnaha ku dhaca, qosolku wuxuu noqon karaa qayb ka mid ah ka hortagga. Qosolku sidoo kale wuxuu hagaajiyaa wareegga dhiigga iyo oksijiinta muruqyada wadnaha. Sidoo kale waxaa yaraanaya fursadaha xinjirowga dhiigga, taasoo sababaysa xanuunada wadnaha. Qodobkeena afraad isna waxaynu ka dhiganaa waxa weeyaan waa natural painkillers, oo ah baabiyaasha xanuunada dabiiciga ah. Qosolku wuxuu kordhiyaa levelka endorphins-ka ee ku jira jirkeena, kuwaas oo ah dilaaga xanuunada dabiiciga ah. Norman Cousins, oo ah suxufi u dhashay waddanka USA ama Mareykanka oo la xanuunsanayay cudurrada aan laga bogsan ee ku dhaca laf-dhabarta, ayaa ka faa'iidaystay daaweynta qosolka markii ay caawin waayeen xanuun baabi'iyeyaasha. Sidoo kale, dumar badan oo ku dhaqan USA ayaa waxay soo gudbiyeen in qosolku uu ka yareeyo madax xanuunka iyo dhanjafka, iyo sidoo kalena caabuqyada ku dhaca seedaha iyo laf-dhabarta, iyo xanuunada murqaha ku dhaca. Halkaas waxaan kusoo gabagabeyn doonaa qaybteena koowaad oo aynu ku baranay waxyaabo badan oo aynaan ka ogeyn qosolka. Qaybteena labaad insha Allah way soo gudbin doonaa ayaamaha fudud inuu sahaya. Fadlan dadka cusub ee channelka subscribe si like iyo share iyo commentina dhac ku sii. Waa mahadsantihiin dhammaantiin.